kuwani waa ciidanka kumaandooska danab xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo carbiyey difaaca dalka baacsiga argagixisada iyo badbaadinta shacabka markan uma socdaan hawlgal qorshaysan waxayna u dhaqaaqeen hawl ka duwan tii lagu yaqaanay oo ah gurmadka dadka abaaruhu saameeyeen iyadoo aynu la wada soconno in guud ahaan ay dalka ka jirto abaar ba'an oo saamaysay dadka iyo dunyada ku nool qaybo ka mid ah dalkeena ayay ciidanku waxay gurmad gaarsiiyeen deegaanka lambar 50 ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose oo ay degan yihiin qaybo ka mid ah dad ay soo barakiciyeen argagixisada al-shabaab kana dhaceen xoolihii ay dhaqan jireen isla markaana ay ka gubeen beerihii ay tabcan jireen taasoo ay ugu darsantay abaarta dalka ka jirta balse ciidanka kumaandooska danab oo ah kuwa u diirnaxaya bulshada ayaa shacabkaasi gaarsiiyey gurmad isugu jira raashin ka kooban bur bariis saliid iyo digir halka qaybta caafimaadka ciidankuna ay gurmad caafimaad u samaysay bulshadii halkaasi ku dhaqnayd shacabka la gaarsiiyey gurmadka ayaa uga mahad celiyey ciidanka taakulaynta waa kan mid ka mid ah dadka deegaanka waa maalintii ilaahay kor alla niga dhigo ilaahay adduun korkeed kor alla niga dhigo aakhir janna alla nisiyo waa maalintii gaaliyaal waa maalintii boqol waa maalintii kor alla niga dhigo adduun macla nisiyo aakhir janna alla nisiyo adduun macla nisiyo aakhir janna alla nisiyo ilaahay abadikiis waxaa maalintii kale ciidamada kumaandoosta reertooda danab oo maanta deeqan soo gaarsiiyey ilaa iyo 150 qoys oo ku dhibaataysneed waxaan ugu mahadinaynaa ilaah ka soo ciidankaas aan ugu mahadinaynaa ciidamada danab waa mahadsanyihiin deeqayno siiyeen waa mahadsanyihiin boqol waa mahadsanyihiin ilaas inta walaal la helo fiiriyoysana fiirsada u soo noqon markaleete dadkaas walaalanya wax siiya sidoo kale ciidanka kumaandooska danab ayaa biyadhaamin u sameeyey bulshada ku dhaqan deegaankan biyadhaamintan ayay baahi weyn u qabeen shacabka halkaasi degan ciidanka kumaandooska danab ayaa gacanna kula diriraya argagixisada arxanka daran ee al-shabaab iyo daacish halka gacanna ay u gurmanayaan shacabka dhibaataysan